السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لما أصحاب شرفت له كسر هذا كنال كنا ما أنت 10 عصبان أدي فرحة يقطع إن أمرك لأن كسر الموضوع أنا وإذن هي 10 قيمة بدن حتى ما أنت 10 كأنه حقوق سابسين هاي ولا شيء كاسي أنا إن شاء الله عادي أيان إن شاء الله صوبين دونا محايا لي وعملها مع تقف وكبران كرو vocabulary ترى بدن يمارت وكحوجين كرو إنه هلو kalsooni tira badan soo qof kale uu xiwaar ula sameyn karo so insha Allah wada sheekaysida aan soo gudbinayo aad iyo aad haloola socdo halana practice gareeyo okay maanta wada sheekaysigeena waxaan inoogu soo diyaariyay ciwaan ku saabsan ganacsiga laba qof oo iska wareysanayaan ganacsi wax ku saabsan iska wareysanayaan haddaba asla aragna marka ugu horeysa English aan ayaa ku akhrinaya si aan u helno dhawaaqa saxda ah oo ereyada aan u helno kadibna insha Allah Soomaaliga ayaa ku sharaxi doona la socdo aan okay ayaa wuxuu leeyahay Are you studying or working? Are you studying or working? B ayaa jawaabay wuxuu leeyahay I left school 3 years ago. I am working now. Ayaa wuxuu leeyahay Are you self-employed or working for a company? B ayaa jawaabay wuxuu leeyahay I am self-employed. I used to work for a company 2 years ago. Okay. ayaa wuxuu leeyahay Are you running any business? Are you running any business? B ayaa jawaabay wuxuu leeyahay Yes, I am running a small business. Okay, ayaa wuxuu leeyahay What does your business sell? Okay, so B ayaa jawaabay wuxuu leeyahay I make and sell handmade cosmetics. Ayaa wuxuu leeyahay Do you have any difficulty running that business? Okay, so B ayaa jawaabay wuxuu leeyahay Yes, I had some difficulties attracting customers at first, but everything is getting better now. Ayaa weli su'aasha sii wada wuxuu leeyahay Is that an online or offline business? Okay, so B ayaa jawaabay wuxuu leeyahay I sell products online. It is easier selling online than offline because I can take full advantage of my social network. Okay, so ayaa marka weli su'aasha sii wada wuxuu leeyahay When did you start the business? Okay, so B ayaa jawaabay wuxuu leeyahay I started running my own business 2 years ago. Okay, so ayaa wuxuu leeyahay What are some advantages of running your own business? Okay, B ayaa jawaabay wuxuu leeyahay I can take some days off whenever I feel tired. And I can make much more money compared to working for a company. That's great. MashaAllah. So marka insha Allah wada sheekaysiga saaso ha wada sheekaysiga halkaas ayuu ku yahay haddana insha Allah isla aragno macnaanta isla aragno. Okay insha Allah marka hadda aan macnaano waxaan dhahnay saan idin sheego wada sheekaysiga wuxuu ku saabsan yahay laba qof oo iska wareysanayso wax ku saabsan ganacsi ku saabsan badanaan Soomaalida ganacsiga aad iyo aad ay ugu dhex jirtaa marka insha Allah waxaan filayaa wada sheekaysigan inuu aad iyo aad ku anfici doono haddaba asla aragno marka marka AB waxaan soo qaatay qofku rabo noqon karaa qof nin buu noqon karaa dumar buu noqon karaa yani waxa waaye anybody noqon karaa soo qofka koobaad ayaa bilaabayo oo su'aasha bilaabay wuxuu leeyahay Are you studying or working? Adiga miyaad wax miyaad barataa mise waad shaqaysaa adiga adiga studying wax miyaad barataa or working mise waad shaqaysaa B ayaa jawaabay wuxuu leeyahay I left school 3 years ago. I left waxaan iskoolka ka soo tagay left waa ka soo tagitaan I left waan ka soo tagay iskoolka waan ka soo tagay 3 years ago 3 sano ka hor I am working now hadda waa aan shaqeeyaa okay so ayaa su'aasha labaad weydiiyay wuxuu dhahay Are you self-employed? Adiga ma nafsad ahaantaada miyaad u shaqaysataa or working for a company? Mise shaqaalaha tahayo waxaad u shaqaysaa shirkad ayaad u shaqaysaa Are you self-employed? Self-employed waxaa la yiraahdaa qofka nafsad ahaantiisa u shaqaysto oo aan shaqaalaha ahayn ayaa la yiraahdaa self-employed. Okay, so B ayaa wuxuu leeyahay I am self-employed. Aniga ayaa shaqaysto oo cidna uma shaqeeyo. I used to work for a company 2 years ago. Laakiin 2 sano ka hor ayaa waxaan u shaqayn jiray shirkad u shaqayn jiray. So I am self-employed. Aniga ayaa naf ahaanteed u shaqaysto
I used to work for a company 2 years ago. I used to work markii used to work leeyahay waa waqti la soo dhaafay hadda ka hor ayaan 2 sano ka hor muddo 2 sano ka hor laga joogo ayaan u shaqayn jiray shirkad u shaqayn jiray. Okay, that's fine. So ayaa wuxuu leeyahay are you running any business? wax ganacsi ayaad sameysay ama wax ganacsi miyaad ku jirtaa? Are you running any business? xogaa marka running kan waxa loo isticmaalaa miyaad ku dhex jirtaa run xogaa horta ficilkaas oo ficil oo loo isticmaalo orod baa loo isticmaalaa marka dadka aysan ku qaldamin wax ganacsi ayaad orod siisaa no Englishka saas looma fasiro marka are you running any business? running kan waa ficil ahaan yani qofkan wax dhaqdhaqaaq oo ganacsi miyuu sameeyaa wax ganacsi ma ku jirtaa waa so are you running any business? wax business ma leedahay si wax business oo ku dhaqdhaqaaqo miyaa jiro? Okay, so B ayaa wuxuu leeyahay yes I am running a small business. يعني wax ganacsi ayaan leeyahay ganacsi yar baa jirto oo aan samaystay. I am running a small business. wax ganacsi yar waxa jirto oo ida dhaqaaqa ayaa jirto. Okay, ayaa wuxuu leeyahay what does your business sell? ganacsigaagu muxuu ka kooban yahay mise maxaad iibisaa? What does your business sell? ganacsigaagu muxuu iibiyaa ama maxaad ka ganacsataa? intaas waa u macna kartaa. So what does your business sell? markaad leedahay ganacsigaagu muxuu ka kooban yahay mise maxaad iibisaa oo aad ka shaqeysaa ganacsigaagu? Okay, so B ayaa wuxuu leeyahay I make waa aan sameeyaa and sell waana iibiyaa handmade cosmetics. cosmetics waxa la yiraahdaa qalabaha maartay oo la isku qurxiyo ayaa la yiraahdaa. So marka waa aan sameeyaa waana iibiyaa qalabyaha maartay la isku qurxiyo oo dabiiciga handmade oo dabiiciga oo aan soo marin warshad aan soo marin dabcan say gurigiisa ku sameysto marka kuwa dabiiciga ah waay. Okay, ayaa markuu soo sheegay wuxuu leeyahay do you have any difficult running that business? wax dhibaato ah ma kala kulantaa marka aad ganacsigaasi aad ku jirto aad sameynaysid? saasuu leeyahay. So B ayaa jawaab wuxuu leeyahay yes ganacsi oo aan maartay dhibaato aan la kulmaynin ma jiro. I had some difficulties. dhibaatooyin waan la kulmaa u dhahay marka aan ganacsigaas aan sameynayo. Attracting customers at first. dhibaatada ugu weyn waxay tahay in aad macaamiishaada aad soo jiidatid. Attracting soo jiidasho ayaa la yiraahdaa. dhibaatada ugu weyn waa in aad macaamiishaada aad soo jiidatid. But everything is getting better now. laakiin haddadan hawshu ay sii fududaanaysaa waa sii hagaagaysaa better way sii qurxmaartay way sii fiicnaanaysaa. Okay, so ayaa hawsha sii wada wuxuu leeyahay is that an online or offline business? ganacsigaasi maqaab online ahaanba aad ku shaqeysaa mise offline oo meel baad fadhiisataa oo dadka ay kugu imaadaan oo meel ba ku furan sandaqad iyo wax miyaa ku furan? saas ayuu leeyahay. So B ayaa jawaab wuxuu leeyahay I sell products online. wuxuu dhahay aniga qalabkayga waxa aan ku iibiyaa qaab online ahaan aan ku iibiyaa. It is easier selling online than offline. waa ay fududahay marka aad qalabkaaga aad ku iibinayso qaab online ahaan markii loo barbar dhigo offline marka aad meel aad fadhiisato dadku ay ku imaanayaan because sababtu waxa ay tahay I can take full advantage. sababtu waxa ay tahay I can take full advantage of my social network. waxa aan ka faa'iideysan karaa ama fursadaasi aan uga faa'iideystaa maaragtay baraha bulshada ayaan uga faa'iideystaa. dabcan waa qof baraha bulshada saameyn ku leh marka wuxuu leeyahay online ayaan ku iibiyaa sababta waxay tahay waxaan uga faa'iideystaa fursad qaali ah oo aan leeyahay maaragtay baraha bulshada. Okay, when did you start the business? ayaa hawsha sii wada wuxuu leeyahay goorma aad bilowday ganacsigaasi goorma aad bilowday? Okay, so B ayaa jawaabay wuxuu leeyahay I started running my own business 2 years ago. waxaan aan bilaabay ganacsigayga in aan sameeyo 2 sano ka hor. Okay, ayaa wuxuu leeyahay what are some advantages of running your own business? maxay ay tahay faa'iidooyinka advantage of faa'iido maxay ay tahay faa'iidooyinka oo aad maartay kugu jiro marka aad sameynayso ganacsi adiga ku gaar ah? What are some advantages of running your own business? maxay tahay faa'iidada ay leedahay marka aad ganacsi adiga ku gaar ah aad leedahay ama aad sameynaysid? So B ayaa jawaabay wuxuu leeyahay I can take some days off. maalmo ayaa aan fasax qaataa ama fasax isa siiyaa. So dabcan waad qiyaasi kartaa markaad qof u shaqeynayso waxaa tahay qof maaragtay oo shaqaale ah oo la controller tahay oo adiga isma fasaxi kartid laakiin marka aad
ganacsi adiga aad leedahay maalmaha rabtidna waa isfasaxi kartaa oo hawl ay ku soo maarto culeys kugu soo noqoto maalmihii kalena hadii sida qof shaqaalo cagajiidayo uma soo kacaysid waa ka soo horkacaysaa maarto wax ku dhiirigeliya ayaad leedahay okay good so leeyahay waxa aan sameeyo maalmo waxa jirta aan fasax isa siiyo whenever I feel tired marka aan dareemo xoogaa in aan daalanahay aan dareemo fasax ayaa isa siiya and I can make much more money faa'iidada kale oo ay leedahay ma ahan kaliya in fasax aan isa siiyo marka aan daalanahay bas ma ahan faa'iidada kale ee leedahay marka ganacsiga adiga ku gaar aad sameynaysaa waxay tahay waxaan sameeyaa lacag tiro badan faa'iido tiro badan ayaan sameeyaa waan run compare markii loo barbar dhigo working for a company marka aad shirkad u shaqeynaysid maxay marka shirkad aad u shaqeynaysid waxa lagu siinayaa salary ayaa lagu siinayaa oo baan laakiin marka ganacsiga adiga aad leedahay waxa waaye wax walba meeshaas ka soo baxay ayuu ku go'an yahay wax go'an oo aad ku xisaabtamaysidna ma jirto wax yarna waad heli kartaa wax badanna waad heli kartaa marka insha Allah conversation keeni halkaas ayuu inoogu egyahay hadii ay tahay inaadan erayo qaar kamid ah aad fahmin insha Allah commentiga inoo soo buuxiyo insha Allah commentiga soo buuxiyo si aan maaragtay aan halkaas ugu soo jawaabo macalinkan uu ogaado in ardaydii casharka fahmeen iyo in kale tada kale waxaan kaloo idin sheegayaa wada sheekaysiin noocan ah oo book aan ka diyaarinayaa jiro buug oo dhowr ah ayaan qorayaa book wada sheekaysi hadda uu dhow yahay 75 ciwaan oo aad xasaasi u ah oo dadku ay maartay u baahan yihiin in ay wax badan ay ka bartaan oo si qof kale markay la macaamilayaan waxaabihii adeegsan lahaayeen ay insha Allah inoo diyaariyay hadii aad xiisanayso buugaas insha Allah si aan idin la wadaago xaga commentiga igula wadaago insha Allah maanta maalinta xigto khayr badan ayaan ku hay wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh